wadaad mu'adina ayaa gabadh ayuu jeclaaday. waa qiso macquulana. gabadha aabaheed baa markaa loo doono loo tago lagu yidhi gabadhaada nasiib. markaasuu gabadha ninka hadda doonaysaan waayo. markaasaa la yidhi waa ninka hebel hebel la yidhaah. markaasuu muxuu ka shaqeeyaa? markaasaa lagu yidhi masaajidku ka addimaa. wuxuu yidhi gabadheeda mu'adin ma siinayo. gabadhuna markaa ninka runtii waa nin khayr ay ku ogto waa iska doonayso way jeclayd. ninkuna gabadha uu jeclaa. ninkii baa loo yimid oo la yidhi warniyo waa odaygii gabadha uu kuu diiday. sababna wuxuu ka dhigay cillad wuxuu odaygu ka dhigay war ninku waa mu'adin. mu'adiniintana waa la og yaho qol yaro masjidka ku yaalla ayay degan yihiin. gabadheeda ma qolkaabuu rabaa inuu la taga buu yidhi. markaasuu yidhi bal waa yahay iska daayo buu yidhi. gabadhii buu yidhi naadee waa yahay bal adna iska sabir anna waa sabriyo ilaahay aan barino. sanad kadib ayaa ninkii uu fikiray markaa qorshaa ilaahay qalbigiisa ku sharxay. ilaa shay markaad jeclaato ee lagaa hor joogsado hadhi maysida xeelad baad raadinaysaa shayga aad ku gaadhid. markaasuu odayaashii buu u yeedho wuxuu yidhi war ninkii odayga ahaa iigu noqdo oo gabadhii maaragtaane ha la ii doono. markaasaa lagu yidhi war waagii dhoweyd baan meesha ku lugo'onay hana lugoyne adeer masaajidkaaga ka addimo iska fadhi bay ku yidhahdeen. markaasuu yidhi maya ku noqda waxaad iga gaadhsiisaan odayga kiin weyddiin doonaaye ku dhahada ninku waa ninkii laakiin ninkii shaqo fiican buu helay iminka shaquu qabtay. markaasay ku yidhahdeen war shaqada aad qabatay maxay tahay? waa adigan aadaankii uun waday weli addimayeen kugu ognahee shaqadaad qabatay dee aan odayga u sheegnaa bal noo sheeg. waxaad ku tidhaahdaan ninkii mu'adinka aad ku ogaydad gabadha u diidday aqalka boqorka qasrigiisa qasriga boqorkaa ninkii shaqo laga siiyo xafiis baa loo dhiibo boqorku la shaqeeyaa. oo yaabay marka odayaashii waxay yaabeen. jawaabtana aanayni siin waxaad ku tidhaahdaan welibana waxaynu odhan doonaa qaybtee baa loo dhiibay waa shaqo fiicane. waxaad ku tidhaahdaan waxaa loo dhiibay shacabka iyo boqorka ayuu u kala dhaxeeyaayo shacabka ayuu boqorka ku soo xidhaa. waxa uu boqorku doonaya buu shacabkana u sheegaa. intaa igu sheega buu yidhi. waa loo yimid odaygiyo waxaa lagu yidhi ninkii shaquu helay. markaasuu shaqaduu helay boqorka qasriga boqorku ninkii shaqo ka qabtay shaqo cajiib ah. markaasuu odaygii farxay ya waa meel fiicane meel fiican buu galee meel fiican buu galay dhegayso. markaasuu yidhi qaybtee buu ka shaqeeyaa? boqorkay layn xafiisyo badan buu leeyahe waxau ka shaqeeyaa shacabka iyo boqorka ayuu u dhaxeeyaayo labadaabuu isku xidhaa ka dhahada buu yidhi labadaabuu isku xidhaa. wayba fiican tahe wiilal badanoon dhalay baaba shaqayna kuwaabuuba shaqo noogu raadina buu yidhi. gabadhii waa la siiyey uu iska guursaday aadaankii uu iska wataa. odaygii baa aawo shaqaduu qabtay. wuxuu yidhi adeer shaqadaa qabtay waa aadaanka. aadaanku waa maxay? aqalkan waa aqalkii boqorka weeyaan. malikalmuluuk aqalkiisii weeyaan. mu'adinku waxau ka shaqeeyaa shaqo kale ma qabtee ilaahay iyo addoommihiisu isku xidhaa mu'adinku. salaaddu markay gaadho ayuu mu'adinku masaajidka xagga sare u baxayaa. xaya cala asalaax xaya cala alfalaax buu leeyahay. kii meheradda ku dhex jiray meheradda dhex joogay ayuu leeyahay ilaahay amarkiisii baa gaadhay. salaaddii wakhtigeedii baa gaadhay. liibaanta xilligeedii baa la gaadhay. kaalayoo amarka ilaahay gudo waad ku liibaanaysaa buu leeyahay mu'adinku. marka innagu zamankan maanta aan joogno waa zaman dadka maaddada ayaa kor martay. maaddada waxaa dhacda dadka inay ku qiimeeyaan muxuu asbaab adduunye uu haystaa. walaakiin zamankii nebigeenna calayhi salaatu wassalaam qofka waxaa lagu qiimaynayey diinta qofka uu leeyahay baa lagu qiimaynayey.